cidna xiise gaar ah uma qabto sheekooyinka ku aadan aafada tahriibka waayo 10kii sano ee ugu dambeysay ereyga tahriib waxa uu ka mid ahaa ereyada ugu badan ee ay maqlayeen ummadda Soomaaliyeed waxaase aan laga fursan karin in bulshada mar walba laga wacyigeliyo safarkaasi halista badan iyadoo loo soo bandhigayo dhibaatooyinka laga dhaxlo tahriibka sidiisaba dad badan ayaa waxa ay jecel yihiin inay ku dhaqaaqaan si ay u gaaraan wadamada reer galbeedka ah ee ay himiladoodu tahay in ay ka heli karaan nolol dhaanta midda Soomaaliya ama wadamada kale ee Afrikaanka ah taala waxaa jira shabakado isku xiran oo sida la sheego ka kooban Soomaali iyo ajaanib kuwa oo jooga wadamo badan oo Afrikaan ah kana shaqeeya arrimaha tahriibinta kuwa oo qaarkood la tibaaxay in ay xiriir dhow la leeyihiin ninka Soomaalida u taqaanay Magafe ee ku sugan dhulka saxaraha ah ee Liibiya shakhsiyaad badan oo horay u tahriibay ayaa waxa ay dib uga qoomameeyeen safarkoodii halista salka ku hayay waxaana alle uu ka badbaadiyay masiibooyin badan oo soo wajahday intii safarkoodu ay ku mariyeen bad iyo bariba qaar ka mid ah dadkii tahriibka ku soo hongoobay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in xaaladda dhabta ah ee safarkaasi ay soo arkeen ayna u muuqato in lagu dabarjarayo Soomaalida waxaana qaar ka mid ah dadkaasi ay warbaahinta u soo bandhigeen waxyaabihii ay la kulmeen iyagoo qaarkood marka uu codkooda ama muuqaalkooda ku soo gaaro dareen gooni ah kugu dhalinayo markii ay dhacda bahashi xitaa hadal waa naga soo bixi waa meesheen aan wada taagnayn markii ay gadoontaan aragna dadkii badda ku wada daatay yaa waxa bilaabatay anaga ashhaadadkii laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah nabadbaadiya dadka qaar waxay wateen jaakaday wateen oo firimbi ku xireen firimbigay qaar yeerinayeen marka runtii waxayna la noqotay wax la yaab leh sababtoo ah meesha waxaan ku weynay dad aan iska soo raacnay أصحابتين قالي مش كوين وانتي وحين نقطة واحدة ياب له عبد الرحمن أيوة We are hearing they screaming. They say Muhyiddin, save us, Muhyiddin, save us, give us a hand. And they don't know how to swim. Some families, some women, they have a pregnant. And some babies are so small. We can't forget, we're not going to forget them. markay dhinaca u dhacday ee dadkii oran dhulku meesha ku wada daateen aniga waa soo noqday waa taagnaan way doonta ku dhacay waxa u jeeday kaliya dadka doonta hoos ugu doontay oo si laqday wiilashaana la soo badbaadiyay may soo badbaadin lahayn dadka wada qaylnay ka soo tageen dadka waa shahaadanaay waana la badbaadin lahaa ana la saacid lahaa ereen doontaan oo doomaysa hadaa u istaagno والله waxaan dareemayaa yani niyad jab aad u weyn aan dareemayaa anigu isma aanan lahayn yani waad ka soo badbaadaysaa shilkaasi oo waxaan niyada ku hayay maadaama dadkaas ay dhinteen anagina inaan dhiman doono waqtigeed doonta ba aad inaan badbaadi doono niyada igu meeyay jirinba runtii aadan uga xumahay shilkaasi dhacay xanuunkeedan waxa dareemi karaa qofkii goobjoog ahaa oo daawanayay qofkaas dareemi kara xanuunka ay leedahay shilkaasi dhalin badan oo dalka maanta iyo bari wax gal u noqon lahaa ayaa waxa si aan kala go' lahayn oo joogto ah ay ugu la'aanayaan badaha iyo saxaraha iyadoona aysan muuqan cid si rasmi ah isaga xil saartay wax u qabashada dhalintaasi ee ku aadan baahiyaha ay tabanayaan dhalanteed kan lagu
lumay dhalinyaro ay tahriibtiyo dhalanteed kan lagu lumay miyaydan dhibkeeniyo dareemaynin dhimashada miyaydan dhibkeeniyo dareemaynin dhimashada lagu dhammaada xeebaha dhalinyarada qaarba dhagar qaba intuu helay lagu dhammaada xeebaha dhalinyarada qaarba dhagar qaba intuu helay dhiga beerka ka idshiyo kalyi laga dhex saaro isbeer baarti laga dhigay ilaa iyo hadda tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee wiilasha iyo gabdhaha leh ee badaha ku qaraqmay ayaa waxa ay da'doodu u dhaxaysaa 15 sano ilaa iyo 25 sano waana halka ugu wanaagsan ee uu aadanuhu noloshiisa horumar ka sameeyo waxaase taasi ka sii xanuun badan caruur yar yar oo iyagana waalidkooda ay la tahriibayaan kuwa oo intooda badan darxumo iyo daryeel la'aan u dhinta baahiyaha u badan ee Soomaalida ay la tahriibayaan ayaa waxa ay ku sheegeen in dalkooda aysan ka heli karin shaqo abuur nabad iyo xasilooni lagu noolaado iyo dhibaatooyin la mid ah hase ahaatee inkastoo dawlad awood buuxda leh aysan Soomaaliya ka jirin haddana dawladihii Soomaaliya soo maray oo ay ugu dambayso midda xilka uu ka sii dhamaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo ma jirto dawlad haba yaraatee qorshe cad kala timid sidii dhibaatadan wax looga qaban lahaa sawirada iyo muuqaalada Soomaali badan oo xaalad adag ku jira ayaa waxay alaaba qabsadaan baraha ay bulshada ku wada xiriirto taa oo xanuun badan ku keenta ehlada iyo qaraabada wiilkooda ama waalidkooda ku waayay tahriibka waalidiin u badan hooyooyin ayaa daris la noqday tiiraanyo ka soo gaartay ubadkooda oo ka mid noqday Soomaalida badaha ku qaraqantay haba ugu horeyso badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga Soomaaliya oo ah dal hodan ah ayaa haddana waxaad moodaa in dadkiisu ay ka baahan yihiin deeqda Allah uu ku manaystay hase ahaatee su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay waatee cidda la doonayo in ay wax ka qabato Soomaalida tahriibka ku baaba'aysa haddiise ay sii socdaan safaradan maxaa ka dhalan kara